maanta waxaan maraynaa marxalad aad u adag baanu maraynaa intaan baanu tiro leegnahay intaan iyo malaayiin kale furimaha ku jira oo ahlu tariiqah baa jira ikhwa al-a'izaa ana maxaan ku raada nadiir al-uryaan digaagii qaawanaa baan ahay dalkaani 2 sano kadib idinma suurtageli doonto inaad halkan ku xadreysaan idinma suurtageli doonto waxaa la idinka doonayaa haddii aanu ka laabanayno xukunkii culimmadu ay xukumayeen ee naloo sheegayay ee ahaa nimankaas shayaadiinta ee maxaan ku idhaahdaa awliyada ilaahay muqaddasaadkooda ku tacadiyey oo maxaan ku idhaahdaa qubuurahoodii faagay oo kuwoodii noolaa eriyey dulligii ay nagu sameeyeen basre iyo biyoole iyo waxay ka samaynayeen iyo ardaygan waxay ka sameeyeen haddaan doonayna inay nagu wada camimto dalkaanina gacanta in ayaga lagu wareejiyo ay naga suurtagelayso ikhwa al-a'izaa qof walbaahi aanu ka laabanno inay khawaarij yihiin hadday khawaarij yihiinna hadda maxaa ay ahayd qitaalu khawaarij fardu cayn khawaarijta la dagaalankoodu waa fardu cayn kullana aasimuun dhammaanteen waan dembaabaynaa dhammaanteen dembiilayaal baanu nahay hadday xaqiiqada laga hadlo marka haddaan doonayno inaannu maxaan ku idhaahdaa ay xilqadahan saa noogu shamirnaadaan haddaan doonayno muqaddasaadkii awliyada ilaahay iyo saalixiintii inay dahirsanaadaan haddaan doonayno diintii xaqiiqadii shareecadii iyo dariiqadii inay kor noqoto waa inaannu ka qabannaa shayaadiinta oo gacan bir ahna aan uga qabannaa aana u wada istaagnaa haddaan taas la helin soo maaha hadda diintan wixii lagu soo naf iyo maal baa lagu soo bixiyey dhiig baa lagu soo horay milladu rasuulillaah ilaa maantan ay ku soo jirtay intaan iyo inta maqan oo ahlu tariiqaha waxaan ugu baaqayaa dalkaani marxalad adag buu marayaa cid allaale iyo ciddii maxaan ku idhahdaa khawaarijtaas hor joogi jirtay ama been ha ku hor joogta ama wax kale ha ku hor joogta way ka leexanayaan intii furinta ku jirtay oo ahlu tariiqada ahaydna way ku jirtaa intiina kalena inaydan u kala harinin oo maxaan ku idhaahdaa aad dalkiinnaan iyo dadkiinnaan iyo diintiinnaan badbaadsataan oo sheekh suufi iyo maxaan ku idhaahdaa dadka la midkaahina aan tacaddi uusan soo gaarin kuwii hore loogu tacadiyey oo biyoolay ay ka mid yihiin iyo basrayana aan ka dul xurayno taas ayada ah baa noo ballan ah haddaannu intaas yeelayninna hadda waxaannu iswaraysan doonnaa qaylo yartaa qalab kama tummee annaguna halkaan ku xilqayn doonin oo ku wada digrin doon